qofku qaladaad badan ayuu galaa inta uu nool yahay. Inta badanna qaladaadkaasi waxay raad taban kaga tagaan caafimaadkiisa jireed iyo kan nafsadeed labaduba. Mararka qaarkood waxaa dhacda in ay saameyn ku yeeshaan dadka ku xeeran. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa caadooyin ay tahay inaad iska goyso inta aanay da'daadu gaarin 35 sano jir. Waa Nacfi Media iyo muuqaal cusub. Qoraaga Yana Yakovenko oo u dhalatay dalka Ruushka waxa ay maqaal ay ku faafisay shabakada FBR waxay ku tirisay caadooyin ay sheegtay in ay ku fiican yihiin in qofka uu joojiyo inta aanu gaarin da'da 35 sano jirka. Waxaana ka mid ah riyada iyo dunida maal awaalka. Dad badan ayaa diida riyada iyo mashquulka caalamka maal awaalka iyagoo u arko inaanay wax faa'iido ku jirin. Laakiin dadkaasi waxay ka jaahil yihiin in riyada iyo niyeysigu ay kaalin muhiim ah ka qaataan dhismaha shakhsiyadda qofka. Waxaa intaasi dheer in qofka haddii uu dadaalkeeda la yimaado uu awoodi karo inuu in badan oo riyadaasi ka mid ah uu u rogo xaqiiqo la taaban karo. Marka ay sidaasi tahayna riyada noocani waxay raad togan ku yeelataa nolosha shaqo iyo xirfadeed ee qofka iyo xitaa shakhsiyaddiisa. Qof aan riyo lahayn way ku adag tahay in uu gaaro yoolkiisa iyo meelaha uu ku xoogan yahay, mana yeelan karo yoolka noloshiisu bartilmaameedsan karto. Inta aanad 35 sano jir gaarin, jooji dhaqanka inaad iska ilaaliso riyada nolosha. Lambar 2, hurdada cashada ka hor. Hurdada habeenkii ee waqtiga cashada ka horeysa waxay leedahay cawaaqib tiro badan oo aan la soo koobi karin. Ha ku degmin aragtida beenta oo ay dadka qaar ku sheegaan in hurdada waqtigaasi ay jirka u koriso tamar. Waxaanaad ogaataa xaqiiqada in hurdada waqtigaasi la seexdo ay kordhiso cadaadiska nafsadeed ee qofka. Raad aan fiicnayn ay ku yeelato dareenka saacadeed ee abuurka oo Alle ku abuuray maskaxda si ay ugu jaangoyso howlaha shaqo ee jirka qaybihiisa kala duwan. Markasta oo qofka ay da' u korodho waxaa ku sii bata dareenka daalka oo toddobaad kasta bilowgiisa la kowsada. Waa muhiim in qofka uu yeesho jadwal go'an oo fulintiisa uu ku dadaalo, taasi oo jaangoyn u ah waqtiyadiisa cuntada iyo xilliga hurdadiisa. Waxayna taasi caawisaa nidaaminta howlaha shaqo ee qaybaha jirka mid kasta u gaarka. Ka fogow khilaafaadka. Muranka sidiisaba waxa uu ka mid yahay caadooyinka foosha xun ee dila xiriirada uu qofka bulshada la leeyahay. Laakiin dadku waxay marar badan isku qaldaan muranka iyo dooda in qofka uu ka dareen celiyo waxa uu diidan yahay. Waxaana mararka qaarkood muran loo fahmay waxaase loo ogolaaday in haddii aad ka dheeraato ka dareen celinta waxa aad diido inay nafta ku yeelato raad taban oo caafimaadka nafsiga wax badan uu ka sheegayo. In qofka uu dood iyo muran ka soo celin waayo waxa uu qabo waxay ku abuurtaa caro daran iyo ka xumaanshiha laabtiisa guba oo ku sii kordhinayo cadaadiska iyo culayska jirkiisa uu tabanayo. Xeeldheerayaasha caafimaadka ee intooda badan cilmu nafsiga ku takhasusay waxa ay ku talinayaan in ay qurux badan tahay in si degan looga dareen celiyo qofka habdhaqankiisa ama hadalkiisa aanu ku raaligelin. Laakiin waxaa la ogaaday in dareen celinta ee baraha bulshada la meeriya sida muddooyinka dambe inta badan dhacda waxa ay keentaa khataro kale oo bulshada iyo naftaba inta badan saameyn ku yeelan karta. Sidaa daraaddeed haddii aad 35 sano gaartay ka dheerow inaad baraha bulshada ee internetka ku faafiso dareenka iyo ficil kasta oo aad dood diidma ah ka qabto. Taasi beddelkeeda raadi inaad si mangal ah oo dadka dood wanaagsan aad dhexdooda ugu yeelato. Midda xigta, uurku taalada. Inta badan waxaynu ilownaa in dhammaan arrimaha raadka taban ee nafsiga inagu reeba ay dhibaato ku keenaan jirkeena. Uurku taalada arrimo badan ayaa sababa yasid uu qofka kala kulmo bulshada ku xeeran ama diiqad iyo ciriiri gaar ah oo la saaro ayaa ka mid ah. Uurku taaladu waxa ay burburisaa nafsadda iyo shakhsiyadda qofka, waxaana ay ka hor istaagtaa inuu ku raaxaysto noloshiisa. Inta aanad gaarin 35 sano ku dadaal inaad ka bogsato wixii culays ku keenaya naftaada oo dhan. Maamul xumada maaliyaddaada. In qofka uu awoodi kari waayo maareynta iyo maamulka qarashaadka uu galayo iyo iswaafajinta dakhliga iyo qarashaadka waa dhaqan fiican in uu ka joogsado
inta la da'yar yahay. Caadaysiga maamul xumada maaliyaddu waa dhaqan qofka qabatima ay ku adag tahay inuu joojiyo. Ku dadaal inaad yari ku barato maamulka maaliyadda. Wixii maamul xumo maaliyadeed kaaga jirana yaan kula soo dhaafin da'da ka horeysa 35 sano jirka. Fariiso oo xisaab cad u samee dakhliga ku soo gala iyo qarashaadka ku yaala oo ay tahay inaad si joogto ah u daboosho. Sidoo kale qiyaas qarashaadka kediska ee aad bil kasta qaadi karto adigoo ku saleynaya dakhligaaga. Baro naftaadan u diyaari inaad keed yeelato. Naftaada oo aad jeclaan weydo. Waa ceeb in qofka uu noqdo danayso naftiisa uun ka fikira, laakiin ogow dhinaca kale in naftaada oo aad jeclaata ay muhiim u tahay quruxda iyo dhammaystirnaanta noloshaada iyo xitaa guulaha aad jeceshahay inaad gaadho. Inaad miisaanka saa'idka ah la dagaalanto, inaad quruxdaada jireed iyo xaragada labiskaada wanaajiso, inaad caafimaadkaada ka shaqayso waa naftii oo aad jeclaatay. Waana jacayl loo baahan yahay in aanad la'aantii nolosha sida ay tahay ugu raaxaysan karin. Inta aanad 35 sano gaarin, waxaa muhiim ah in aad mar walba ku dadaasho in aad ka shaqayso nafsadaada oo aad xoogga saarto waxyaabaha ugu muhiimsan ee naftaadu ay u baahan tahay. Isjacaylka nafta ee danaystinimada, xasidnimadana iyo dadka kale oo hayntooda oo aad ka eegto ay la mid tahay inaad isbarto, inaad ceebahaaga oo dabcan badan aad ka mashquusho eegmada ceebaha dadka kale, iskana jir adiga oo markaasi da'dan gaaray inay weli kugu sii jirto dabeecad markaasi aan wanaagsaneyn, oo dadkan gaaray ay weli kugu sii jirto dabeecad waxa aad eegto waxa saaxiibka ee aad haysato ama guusha uu gaaray adiga oo ka xun iyo waxyaabaha kale ayaa ka mid ah waxyaabaha loo baahnayn. Ugu dambeyn, xiriir dhammaaday oo aad ku sii dhignaato. Xiriirku waa muhiim caafimaadka iyo farxadda nolosha. Xiriir fiican oo aad la yeelato lamaanahaaga, qoyskaaga, saaxiibka iyo guud ahaan bulshadu waxay u fiican tahay noloshaada, halka gooni jooga iyo faquuqnimada ay khatar ku tahay nolosha. Laakiin ha ka baqin inaad keli aad joogto adigoo wehel la'aan ah ka cabsanaya. Ha isku sii dejin xiriir aad ogtahay in uu fashilaad ku dambeynayo. Ogow inta uu markaasi ku yaalo xiriir aanad raali ka ahayn iyo dhaawac caafimaad ee uu ku gaarsiinayo marnaba kama badanayo dhaawaca keli joogtinimada uu ku gaarsiinayo. Xiriir aad ogtahay inaanu waareyn ama xitaa madow kaaga jiro mustaqbalka halka uu ku dambeynayo waxa aad ka qaadaa niyad jab joogto ah iyo murugo aan dhammaan oo noloshooda ay ku jirto. Inta aanad gaarin 35 sano jirna in aad dhinac isaga tuurtid cabsida kelinimada oo aad joojisid xiriir kasta oo aanad hubin inuu guul ku dhammaanayo. Muuqaalkan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Inta muuqaalkiisa xiga aan dib dambe hawada ugu wada kulmi doono. Sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.